بسم الله الرحمن الرحيم كلنتين أكسن خيارتنا داونا سائد الكيم بميل كستوات جوكتان داونا الكسور دوادا برنامج كحقورا أو تضواد والبحلغا عنو إذن كمسو بالدولنا تلفزيون كالسن استوديو وكل هاي مقالة لندن داونا البرنامج كتضواد كان waxay ku falan qayn doonaa arrimo muhiim ah oo ku saabsan shirka looga hadlayo arrimaha Soomaalida ee dhawaan ka dhacaya magaalada London shirkan oo ay markaa soo qaban qaabisay dawladda waddanka Britain qodobada muhiimka ah ee barnaamijkan ku lafaguri doono waxa kamid ah ujeedada shirka loo qabanayo iyo ajandayaashiisa looga hadlayo inta uu socdo iyo sidoo kale waxa ay shirka ku keeni karaan diidmada ka qaybgalka ee ka yimid Somaliland iyo Puntland shirkaasi iyo natiijada ka dhalan karta shirkaas waxyaabaha laga filayo inay ka soo baxaan intaba barnaamijka waxa laga qayb qaadanaya Ambassador Abdifataax Saciid Axmed oo isagu horay u ahaa ambassadorka Somaliland uga wakiilka Jamhuuriyadda Ireland waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb qaadanaya Mawlid Xaaji Cabdi oo isaguna journaliste ama suxufi Soomaaliyeed oo isagu ka soo shaqeeyay qaybo badan oo ka tirsan wakaaladaha wararka iyo waliba hay'adaha warbaahinta gudaha dalka Soomaaliya ka jira waxna ka qora arrimaha Soomaaliya aad bay mahadsan yihiin sida wanaagsan ay nooga aqbaleen ka qaybgalka barnaamijkan ugu horreyn waxaan stuudiyaha ku soo dhaweynayaa Kalsan Ambassador Abdifataax Saciid Axmed Ambassador marka hore ku soo dhawow Kalsan TV marka labaadna waxaad si guud aragtidaada warbixin nooga siisaa annaga iyo daawadayaashaba ujeedada shirkan London loo qabanayo muxuu yahay ajandayaasha intaad ku ogtahay looga hadli doono maxay tahay بسم الله الرحمن الرحيم رنتي أدب مهتسنتها نظارة أدبنا وفرحسنا رنتي كالسن تي في أو رنتا آدياد مادام صحفي ولا تهاي رنتي أنا على استماعتي أنا كقريب القضاء أما قريب وين كقعته محايدوي كالسن تي في برنامج كده هو سوى الدين دورات سوى الدحورهن ورنتي تاريخ بدن كله الرماة الصومالي عيا بدأت كذا هذا الشيء رنتي أدبنا مهتسنت سود وين تاد سود ويسي حتى نقول جرا شركة الرميسة شركة سوى جنبا جنوري سنة كان لابد إلى صدحية طبعا كأيها وحكون واقعي برنامج سرقة كان إنجليزكا إنه شروق قبضونه صوماليا السجي مدحونها صوماليا حسن شيخ qaybtiisa Twitter-ka la yiraahdo ama internet-ka oo ha marka faahfaahin badan marka kama bixin muhiimadda markii dambe ay shirka ka bixiyeen waxa ugu muhiimsan laga hadlay ay dawladda Ingiriiska ama ra'iisul wasaaruhu oo runtii sheegay waxa ahayd in Soomaaliya si dib u dhis loogu sameyn lahaa hadii ay noqoto xagga caafimaadka cadaaladda education-ka amniga maxaa hay'adaha iyo financial control waxa la yiraahdo runtii waxa ugu muhiimsan ah lacagta deeqaha caalamka siin doona Soomaaliya sidii loo control ama hay'ad controlsha loo sameyn lahaa waxaana shirka runtii ka soo qaybgalay ilaa 50 dawladood oo caalamka ah hay'ad caalamiya ama kuwa carabta noqdaan kuwa Afrikaanka ama dawladaha la jaarka Soomaaliya ee dariska ah daraato dalkiisa waxa ka hadlay shirka arrimaha dibadda Afrika oo qaabilsan dalkan maximums oo yiri maxaa hay'adaha shirkaas waxaan ku rajaynahay in lacag badan ay Soomaaliya moogtahay deeqa badan ay uga iman doonto maadaama Soomaaliya dhibaatooyin koob iyo 20 sano ay ku soo jirtay arrimahan ka hadalna sida cadaaladda xagga caafimaadka waxyaabo badan weliba ugu muhiimsan ay tahay saareen amniga sidii gacanta dawladda ee Soomaaliya imika jirtay ay soo gali lahayd iyo taa dhaqaalaha caalamka marka runtii shirku wuxuu socon doonaa 7 oo dhamaan doona May maalinta labaad shirku waxa laga hadlay waxa la yiraahdo trade-ka iyo investment-ka ama maalgashiga dadka shisheeyaha ama dawladaha Yurub jooga ama dawladda Ingiriiska gaar ahaan haday noqoto shirkadahooda ama dadka Soomaalida sida wasiirku daraadiri diaspora ku nool wadankan Ingiriiska si maalgashi ugu sameyn lahayn Soomaaliya oo maalinta laba bisha deeda maanta waxa laga hadlayna waxa uu amniga iyo taan ku soo sheegay xagga cadaaladda si wax looga qaban lahaa caafimaadka waxbarashada iyo dib u dhiska Soomaaliya guud ahaanba runtii waa marka muxuu yahay farqiga u dhaxeeya shirkan la qaban doono talaadada iyo kii ka horeeyay isbarbardhig markaad ku samayso maxay ku kala duwan yihiin kii ka horeeyay sanadka hore la qabtay 23 February runtii shirkaasi wuxuu ahaa shir
dowladdii ku-meel gaarka ee markaa sheekh shariif uu mataliyay ay kasoo qayb galeen iyo dowlad goboleedyada markaa hadday jirtay sida galmudug oo kale puntland oo kale al-sunna waljamaaca wuxuu kaga duwan yahay faraq weyn baa udhexeeya iyo somaliland iyadoo markaa gaar loo soo casuumo oo marka hore xukuumadda somaliland ka biyadiiday shirka hore 23 february inay timaado markii dambena safiirka u qaabilsan dalka ingiriisku laba goor ku noqdo somaliland uu ku qanciyay danba ugu jirta somaliland inay shirkan kasoo qayb gasho marka faraq u dhaxayn kara waxa weeye kaasi wuxuu ahaa isku keenid la isku keenayo markaa dowladdaas waqtigeeda gabagabaha sheekh shariif aan ognahay iyo runtii kama mudan caalamka lacag u ballan qaaday dowladda ingiriiska waqtiga iyo caalamka 104 milyan ilaa imika ma garan karo lacagta wax ka soo gaadhay san ka warhayno Yurub waxyaabo badan ballan qaaday laakiin borsiska waqtiga qaata lacagta marka waxa uu taas waxa ahayd in shir loo qabanayay dowladda markaa sii jirtay iyo Soomaaliland iyo dowlad goboleedyada markaa ka jira Soomaaliya oo caalamka loo tusayay in ay baahi jirto in la hadal meesha u yimaado laakiin wuxuu kaga duwanyahay waxa jeer garanaya madaxweynaha Soomaaliya iyo Prime Minister Ingiriiska oo taa marka hore waxa jeer garanaya kariya waxa dowladda Ingiriiska oo waliba gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda waa ku soo noqon doonaa bashtoor aad baa mahadsantahay mawlid maxaad ku kordhinaysaa qodobkan aynu marka hore kaga hadlayno barnaamijka ku saabsan ujeedada shirka ajandayaashiisa iyo waxa farqiga u dhaxeeya shirkan iyo kii ka horeeyay muxuu yahay بسم الله الرحمن الرحيم عبد القادر aad baad u mahadsantahay runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado kana qayb galo barnaamijkan muhiimka ah xog waran aad nagu martaqaadeen telefishinka Kalsan oo runtii ku soo biiray dhawaan saaxadda saxaafadda Soomaaliya oo runtii aan oran karo dad khibrad u leh ayaa ka dhex muuqda saxaafadda wax weyn buu ku soo kordhin doonaa saxaafadda hore kacaysa ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waan idinku habaleenay dadaalkaas aad samayseen intaas kadib haddii aan u daadego dulucda barnaamij su'aashaada waxaan ku kordhinayaa walaalkay Cabdi Fataax shirkan muhiimad aad u ballaaran ayuu u leeyahay dhammaan deegaanada dadka Soomaaliyeed degan yihiin gaar ahaan dowladda hadda Soomaaliyeed ee madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynaha ka yahay shirku wuxuu ka kooban yahay 10 qodob 4 qodob waa waxyaalaha shirka la doonayo in lagu maxaa la yiraahdaa sheeg laga hadlo 6 qodob waxa laga filayo waxa kaloo sii dheer ilaa 6 qodob oo kale oo ayagana sii furan marka 16 qodob guud ahaan shirka koobay laakiin arrinta shirka uu qosay 4 qodob walaalkay Cabdi Fataax ku dhawaajiyay dhinaca amniga ayaa la baroon koob maxaa la yiraahdaa ish mushaar ay siiso sidii loo diyaarin lahaa ama loo tababari lahaa qalab military loo siin lahaa dhaqaalihii mushaarkooda loo kicin lahaa iyo arrinta muhiimka ah oo cadaaladda bacdama dadka Soomaaliya dhibaato ka taagan tahay meelaha ay Soomaaliya dhibaato ka soo gaartay ilaa kontonka sano xorriyadda la haystay ay ugu muhiimsantahay cadaaladda oo burburtay cadaaladii laga shaqeeyo iyo arrinta dhaqaalaha oo ah musuqmaasuqa la cirib tiro dowladda wixii soo galay iyo wixii lagu taageero iyo wixii lagu sameeyo arrintaas marka waxay shirku ka saacidaya sida Cabdi Fataax uu sheegay guddigaas la dhiso oo wadajirka joint committee guddi wadajir oo Soomaaliya iyo ka socda international community oo isla maamulo dhaqaalahan bacdama ay jiraan eedeymo ka imaan dhinacyada Soomaalida gudahooda iyo international community oo leh dhaqaalaha la deeqo iyo wixii soo gala waddanka musuqmaasuqaas marka intaas oo kale ayaa ku jirta waa qodobka intaas isla wata qodobka labaad waxa weeye sida international community ama bulshada caalamka ay isugu raaci lahayd in la taageero Soomaaliya macnaheedu maxay tahay haddii Turkiga dhinac ka wado Mareykanka dhinac ka wado midowga Yurub dhinac ka wadaan dowladaha islaam ka wadaan shakhsiyaad ka wadaan gaar in wixii la mideeyo oo hal tuubo la mariyo oo ah tuubadaasi Soomaaliya sidii loogu sameyn lahaa dib u dhiskeeda qodobka kale waxa weeyaan in dowladdu ay keento arrin ku saabsan sidii ay u xalin lahayd waxyaalaha jira oo farqiga xagga siyaasadda political issues oo waxa la yiri maxaa la yiraahdaa taagan hadda macnaheedu waxay tahay waxa lagu soo beegay Soomaaliya shirka diiday dhinaca Puntland ayuu shalay ku dhawaaqay iyo meel iyo siyaasiyiin iyo dad kale oo ayaguna shirka soo horjeeda marka dowladda ay timaado ajenda ay leedahay aniga waxaan doonayaa waxaas inaan sameeyo waana sababta madaxweynuhu uu tagay sida filayna arrinta soo ka warhaya uu tagay Puntland Garowe waxa shirka laga filayaa marka oo qoseeya in la soo dhaweeyo hadalladii dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland dhex maray in markaasi laga shaqeeyo qaraarka qaramada midoobay ee 2093 oo
la korinayo qaramada amisom mandatekeeda laguna diyaarinayo UNISOM qeyb la yiraahdo oo United Nations had yartaa barnaamij cusub ergey cusub wato iyo in markaasi la keeno hab looga hortago dhibaatada haysata dadka Soomaalida gaar ahaan haweenka iyo dadka dhibaatooyinka loo geysto maxaa la oran jiray kufsiga okay qodobka lixaad oo asla muhiimka waxa weeye in laga hadlo sida dib u celin ugu sameeyo qaxootiga Soomaalida arrimahaas ayuu shirku xoog saaray Cabdulqaadir waa tahay waa mahadsan tahay waa tahay arinta uu ka dhawaajiyay Mawlid la leeyahay shirka sidaa uu ku socon doonaa adigana aad sheegtay ambassador aad tiri madaxweynaha Soomaaliya iyo dowladda Ingiriiska ayaa shir gudoominaya taama kula tahay in ay tahay waxyaabaha ay Somaliland ka biyadiidayso ka qaybgalka shirka mise waxay kula tahay ajendayaal kale ayaa jira Somaliland ay diidan tahay waxa laga hadlayo miyaa wax ka jiraan aragtidaada maxay وسؤال wanaagsan runtii saan horta ka warqabnaba 2012 sanadkii hore bishii February 5teedii xukuumadihii hore anigu ka soo tirsanaan jiray horta marnaba Soomaaliya la hadlo ma banaaneenba wada sharci baa jiray 2003 la soo saaray 22 October labada gole Soomaaliland guurtii baarlamaanka baaskareeyeen oo oranayay shakhsiyaadka ama mas'uuliyiinta qaranka ama ma ogtahay nimanka abwaanada ah inay qayb galan karaan Soomaaliya shirarka iyo wax la halmaala tii marka waxa dhacday xukuumadda maanta joogta madaxweyne Axmed Maxamed Siiraame madaxda ka yahay inay go'aan u geysay sharciga isaga ah si ay wada hadal karto Soomaaliya ama cidii kala dan ugu jirto marka 5 February ay sharciga dib loo laalay oo golaha u codeeyay marka in xukuumaddu ay qayb gali karto shir Soomaaliya u dan ah taana su'aasha soo noqdo waxa weeye tan Soomaaliya madaxweynuhu ku celiyay daraato damiso ka hadla madaxweyne Axmed Maxamed Siiraame wuxuu dan Soomaaliya shirkan haba yaraatay ugu jirta ma jirto ta koowaad waxa weeye shir marka la tagayso shir ajendiisi aadan awood u lahayn ama dejintiisi aadan qayb ka ahayn oo ah inaad meeshii tagto lagu yeeriyo dhibaatada leedahay هذاك مركز شيء مركز تجلس ولا هذا مركز هدي مركز أورنا هاي دولة إنجليز كأما دولة الصومالية حسن شيخ وراها يقول الصومالية هو حنشعلنا جندية ولا دتشينية إن خايبنا قالوا نقولها إن لدتشان ده مرحلة أمور سكرة بحال هذا دنجا وحلا بيها ولا حكومة دمانته ديدين ديدين لكن هذا مركز ولا واقعي ورانتي ولا يروح حتشار قرينا بدون الشركة مدحونا Soomaaliya barnaamij sarka Ingiriiska ta Soomaaliya wax dan ugu jirta ama meel ka soo gali karta haba yaraatee shirkina aan ka warqabin ajendiisa wuxuu yahay oo sida dadka la macsuulay oo ka soo qayb gal waliba Soomaaliya la sii tahay waxa weeye runtii aan waxaan qabo madaxweynuhu ku saxsan arrinka ku diiday sababta dad Soomaaliya wixii dan ugu jirta shirka danta ugu jirto ayuu danteena ka qayb galayna tii markaan dantii Soomaaliya meesha haba yaraatee ka muuqato marka uu ku saxsan arrinta xitaa sad ka warqabto bishii hore David Cameron ra'iisul wasaaraha Ingiriiska William Hague madaxweyne Axmed Siiraame oo yara hafnaa ku dhibay hadlayeen oo sheegay wuxuu yiraahdo qaraar baan qaadanay dan ugu jirto shirkan haba yaraatee ma jirto aan saasada raalada ku hadlaa maadaama Ingiriiska dawladdu xiriir soo jireen iyo qoto dheer laga dhaxeeyay ma filayn in wax runtii la imanay jirto because shacab dadku waxay doonayaan in madaxweyne Axmed Maxamed Siiraame ku shaqeynaya oo ah rabitaanka shacabka waa tahay ma ku muuqata adiga ajendaha shirka looga hadli doono dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Britain inay ka wada hadleen oo isla meel dhigeen miyaa ku muuqata mise waa ajende dowladda Britain ay wadato oo dowladda federaalku ay ka soo qayb galayso oo laga wada hadlay maxaa meesha kaaga muuqata sidoo kale ka warhayn reer galbeedku leeyahay waxa weeye dowladda Soomaaliya of course waa lagu shacabadeen oo shirkan inay jeer garanayso laakiin dowladaha western sida ka warqabna nagaar waxa weeye ajenda oo hidden agenda wax la yiraahdo ayaa jira dana gaar ah oo Soomaaliya laga leeyahay هذاك مركز شركة الجدوين مدحونا Soomaaliya of course ولا الشركة ولا شهر قرانية ولا قرنبا لكن يجوا إنجليز كهذا أجندة قرصون أياتنا وأما دان Soomaaliya اللي قلها أما هو اللي هنقطه أما معلومات كله هنقطه أما وحيابك كله إنترست الرجال كدوريان ما دام التركي جماشي وصاق عليه هذاك دولة التركية وصابش Soomaaliya آدم يكون عاونيسه إنجليزكم وكيلكية وسترن كمان مراكز كجودة هالبان راحة أجندها سويتشرا وده قرصان معها لكن الشركة اللي بجد كلها وشرح له قرحية وحلقات بيجروا يحولها Soomaaliya يرسل سعره جرجرانية. marka waxay ku tahay ajendaha inaysan dowladda Soomaaliya wax badan kala socon waxay ku daraysaa afkood inta ku sameynaysaa waxa ku darsanaysaa Soomaaliya laakiin ta Ingiriiska oo watay westernka ay ku badan
maxaa ku dari lahayd waxa weeyaan horta diidmada somaliland baan jeclahay inaan wax yar raaciyo waxa weeyaan diidmadu waxay ku salaysan tahay sida cabdifataax uu ku dhawaajinayay somaliland madaxweyne Siilaayo oo ilaalinaya dowladda iyo dadka somaliland waxay isla garteen oo ah muxuu ahayd in la fiirsho wixii danta xaggooda ay ku jirto marka halkaasi waxaa ka muuqata shirka inay somaliland u aragtay inuusan dan ugu jirin danta koowaad waxay tahay wuu ku doon yahay shirkan shirkii hore ee London ka dhacay shirkii hore dowladda ku meel gaar bay ahayd maamulada dhan baa loo yeeray somaliland qayb bay ka ahayd shirka casumaadiisa loo fidiyey markaasi way sinaayeen oo dhammaan waxaa loo yeedhacaya soomaalida laakiin hadda kan dowladda Soomaaliya oo la wada aqoonsaday international community legitimate political strategy maxaa la yiraahdaa ii sheeg yani haybada siyaasadeed ma keenayso in madaxweynihii dowlad ama maamul ka go'ay iyo Soomaaliya ka go'anay intii la shirka la fariisiyo waa simantiin yani ma soconayso marka halkaas waxaa ka muuqata marka in shirgudoominta la shirgudoominaya ay Somaliland u aragtay in bahdil ay ku tahay halkaas ka muuqato marka taas ayay go'aansadeen iyo in ay ka muuqato danta guud oo ay Somaliland sheegtay inaysan ku jirin laakiin shirku markii la yiri waxaa ka soo qayb gala waxaa shir gudoominaya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Britain madaxweynaha Soomaaliya waxaa halkaas ka muuqata marka in international community aqoonsiga dowladda la aqoonsaday qayb ka tahay halkaas la doonayo oo ah international community in dowladda Soomaaliya loo arko in Soomaaliya uu kiil ka tahay mas'uul ka tahay Puntland ku jirto ahlu sunna ku jirto maxaa la yiraahdaa ii sheeg galmudug ku jirto dhinacyada ay ku jiraan dowladdii ilaa waxa lagu dhisay heshiisyadii Garowe waxa lagu dhisay Turkiga ay saxiixeen madaxda qabaa'ilka ilaa kunka qof ergooyinka ah waxaasoo dhan halkaas ka muuqanaysa dhinaca kale marka loo fiirshana xagga siyaasadda waxaa moodaa in Somaliland ay dareemayso in international community ay si gaar ah u wato madaxweyne Xasan Sheekh ama dowladda cusub ee Soomaaliya loo dhisay oo ay hadda dhinaca Turkiga oo hadda Ingiriiska iyo reer galbeedka aad uga shaki qabaan ay isxijinayso si markaas ka dhaxgalo marka Puntland waxay tiri shirka ka qaybgalkiisa iyaduna inaanay ku qanacsanayn oo aanay ogolayn inay timaado marka maxuu yahay xagee isaga mid ka noqon karaan Soomaaliland iyo Puntland arrinta wax iska dhowba diidmadooda mise aad bay u kala duwan tahay waa mahadsantahay waa su'aal muhiim ah waxaan jeclahay su'aashaas intaan hambargay inaan ku sii socdo qodobadii arrintii walaalkeen ka hadlay ee ahayd dowladda Britain iyo reer galbeed danaha ay leeyihiin waa sax cid nin walba taageero ku siinaya dad buu leeyahay Liibiya ugu dambeysay markii Qadaafi la burburinayay waxaa laga saxiixay kooxahan in dhaqaalihii dib lagu sameyn doono Ciraaq sidoo kale Afghanistan sidoo kale way dhacaysaa marka cid walba oo dal adiga ka leh inay intee ku taageerto danteeda inta fushinayso wax jira weey laakiin hal mid baa muhiim ah oo la isku raacsan yahay oo ah Soomaaliya in sida lagu sii fiirsan karo 22 sano oo la leeyahay ayagoo dhawaato isku noqdeen Soomaaliya adduunka dhawaato ku noqonahay marka ay helaan wax la isku raacsan yahay ayagoo ka faa'iideystaan Soomaalidu anaga ka faa'iideysan leeyihiin marka qasab taasi way noqonaysaa marka halkaas marka waxa ka muuqata ajendayaasha marka waxay ku xiran tahay sida turubka ula ciyaaraan madaxda Soomaalida oo ay u fahmaan arrintaas oo yiraahdaan ragga hadda la doortay anagu inta baan doonaynaa inaan la qabataan inta naga caawisan laakiin intaan waa waxa weeye sovereignty Soomaaliyeed ayaga ayaa laga doonayaa waxaan aaminsanahay hubaana inuu madaxweynuhu ku leeyahay shirka socodsiintiisa iyo ajendihiisa lug badan ku leeyahay ajendayaashana iyo waxyaalaha soo soo gudbinaya aad buu uga duwan yahay sida filayo dadkii loo soo bandhigi jiray arrimaha because of awood ma lahaynba oo waxa weeyaan hadda laakiin maanta dowlad rasmi ah Soomaaliya matashay weeyaan marka hadduu asagu keeno in wax loo soo meeriyo waxuma dariiqa ay maraan raggi ka horeeyay halkaasna waxa ku lumaysa himilada Soomaalida laakiin inuu leeyahay maado uu yiraahdo shirka intaan ku darsanayna annaga waxaan u baahanaa caawisaan inagu inta baan lagu isku taagana sida baan doonaynaa waa tahay diidmada marka Somaliland iyo Puntland aad way kala duwan tahay Puntland diidmadeedu waxay ku soo beegtay 8 saac ka hor shirkii oo dhacayo waxa halkaas ka muuqata marka in ay ku xoojinayso diidmadii Somaliland oo culays ku saaray dowladda Soomaaliyeed waxa ugu maqaalaa dowladda Ingiriiska iyo wadamada hadda international community especially qoliyahan reer galbeedka oo dowladdan taageera hadda madaxweyne Xasan Sheekh madaxda ka yahay inay yiraahdeen ku qanci dhammaan inta ka soo horjeeda shirkan ay ka soo qayb galaan
puntland marka qaybgalka shirka ma aha inay shirka uga qaybgalaysa konton iyo kowda dowladood oo shirka ka qaybgalaya oo kale ma ahan waxay ahayd inay la socoto bacdada arrimaha soomaaliya laga hadlaya qayb muhiim inay ku tahay dowladda soomaaliya dhismaheeda qayb ka tahay in shirka ay kasoo qayb gasho lagu casuumo iyadoo waftiga madaxweynaha la socda madaxweynaha la socda halkaas marka madaxweynaha farole iyo dowladdiisu waxay ka arkeen in ay uga faa'iidaysan karaan qalalaasaha dhinacyada siyaasadda jira iyo somaliland arrinteeda inay culays ku saaraan madaxweynaha puntland press release shala soo saartay aad buu u culus yahay press releaseka yani war-saxaafadeedka 3 qodob baa aad u muhiim ah oo muujinaysa khilaafka soomaaliya maanta hareeraya oo soo socda inuu aad u culus yahay waxay yidhahdeen short notice buu ahaa safarka madaxweynuhu iga hadlaho aan sii jilciyo ingiriisku waxaa igu maqaala ah markuu tegey william hague muqdisho madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wuxuu ka codsaday in la tago puntland ama lagu qanciyo ka qaybgalka shirka madaxweynuhu isagoo arrintaas fulinaya ilan waxaa laga rabaa in la yidhaahdo maaha aniga madaxweyne waa la aqoonsaday sidaa rabaa sameynaya maaha waa inuu madaxweynaha iyo dowladdiisu la yimaadaan in dhammaan dhinacyada soomaalida dalkii meel walba waxaa kala duwan maamulaa ka jira loo tago lala hadlo la yidhaahdo shirka kasoo qaybgala marka in uusan dhihin aniga shirkii waa la aqoonsaday anaa tegaya ciddii ka qaybgalaysa ladda hatimaad hadii ala soo qaato inuusan muujin isaga yoolkaa siyaasaddu ciyaaray wuu tega meeshii puntland marka waxay kusoo beegtay halkaas ayay laftigeeda yool kale ciyaartay oo ah waxay tiri safarka madaxweyne deg deg buu ahaa qodobka labaad ee ka hadasha waxaa ka mid ahaa without agenda inuu garowe la tegay waxba uusan la tegin qodobka saddexaad waxay tahay inuu madaxweynuhu diiday inuu kala hadlo puntland national internet affairs waxa la yidhaahdo arrinta qaranka taasoo lafteedu dhibaato noqon karta oo yani taas dood aan siin karin puntland maxaa yeelay madaxweynaha isaga madaxweynihii wadanka ah isaga ayaa national affairs lagala hadli karaa wuxuu kala hadli karaa isagu dhinaca federaalka ka qayb qaadashada maamulka arrinta kale oo puntland ka dhawaajisay oo ayada dhibaato noqon karta waxaa kamid inay tilmaamtay musuqmaasuq oo ay ugu baaqday deeqbixiyaasha bacdamaa shirka lagu bixin doono 459 milyan dowladda ingiriiska 50 milyan bixin doonto 2 bilyan oo soomaaliya deyn lagu leeyahay la rajeynayo in mataqaanaa laga cafiyo bay digniin sii jirtay signal bay sii jirtay puntland oo ah ay leedahay waa in laga fiirsada musuqmaasuqa iyo dhaqaalihii hore loo siiyey soomaaliya in laga fiirsado marka puntland marka iyagana sadahida siyaasadeed iyo culayskan jira iyo somaliland diiday ayay culayska ku rinaysaa si loo yidhaahdo shirkii waxaa diiday somaliland iyo puntland waxaan qabaa arrintaasi marka dhinaca siyaasadda isku tuurtuur iyo waxaa jira maxaa la yidhaha kaarar siyaasadeed la ciyaarahayo laakiin madaxda soomaalida ha ahaada xasan sheikh iyo shirdoon ama ha ahaada puntland ama meel kale galmudug iyo jubbaland ama bay waxaa saaray xilkaasi oo 22 sano dad soomaaliyeed oo burbursan oo dhibaata ku dhacday oo 260 kun ay dhimatay ilaa 2011 oo adduunka dhibaato ay ku tahay qaxooti badan ku dhimanaya in dan siyaasi la fiirin oo la fiirsho danta guud ee Soomaaliyeed marka waxay ku xiran tahay hadda wadankan aan joogno Yurub Ingiriiska ama midowga Yurub si guud rag baa ka fakiray 20 sano ka hor in la sameeyo midowgaas muxuu ahaa bulsho kala af ah ilaa Eastern Europe ilaa bariga Europe ilaa maxaa la yiraahdaa galbeedka kala duwan yihiin kala dhaqan yihiin isdagaalay كنت سنة كهر ضد بقى فكري وحلا سمي العقد وحلا سمي علم برلمان إلى مدحوني وحلا قبيل وضع كسته هلا وضع لغة هلا كلا دولار لكن هل انترست أنا يلا انترست كسيرة يورو مركا ملاحظة صومالية مين يبغى الجولان حرقيس جرو جيجيجا محل كينيا بجارسة ضد صار اللي شقيه وأي مادام ضد له هم سياسة وأنه هرت صوماليا بدل هاي aynu is-afgarano oo walaaltinimo kuwa hadalno oo aan codadka gudubno hala kala deganaado waa tahay waa mahadsan tahay ambassador waxaan ku weydiinayaa abtaax arrinta ku saabsan diidmada somaliland iyo puntland ma wax isku mid ah miyay ku aragtidaada u muuqataa mise waa arrin aad u kala fog sidaad ogtahay somaliland hore waxay u sheegtay inay soomaaliya inteeda kale ka go'day puntlandna dowladda federaalka ayay ku jirtaa marka diidmo isku mid ah halkaa isku miisaana ma kaaga muuqataa mise aad bay kala duwan runtii aad bay kala duwanta sida mawduuca kaga dhawaajiyada puntland waxay ku dhawaaqday waxaad 48 hourska hadda ugu dambeeyay somaliland waxay ku dhawaaqday march adeeg madaxweyne markuu wareysay turkiga tagay ayuu ku dhawaaqay shirka dan ugu jirta haba yaraatay somaliland madaxweynaheedu ma jirto ma tageen isagoo airport Hargeysa ka soo baxaya marka farq u dhaxay horta halkaas ta ugu horeysa ay ku kala duwan tan kale farq u dhaxay waxa weeye somaliland dawladdu
كل سدي تون كيلو كل ساعة بقى عشرين كل يترب من أحبنا أيام نصون الصومالي كلا صون بدل عنا والدولة قبلات صومالي كتشرتا ومدمر روان قونا مركا بنت يعني بساعد ومشي كل جيمز باتش لما بوليتيكال جيمز وحلي رولا عياريو والله ما يقولك سو دكتور سومالي أنت ديدي سلاح حسن شيخ هلا يقول عريريا أو بوليتيكال هالي الصومالي من تشيد أو كله أو محاها يدتك كل ما سعودان أو معمولة كتير صوماليا عند صوماليا يقولون كتاهي كل ما سعودان بنت لنا كم تاهي جب لنا وطن اسكو هيستو مركا بنت وحن قبا ما دام بنت لنا اللي قرأت مركا هورين صوماليا كم تاهي إن حسن شيخ ولسعتي أجندها الشركة كان اسمه هستي قرروا تقول لكم الفرالة وصل بند قاعد يروي واحد حبين كجالسين كرنا إنبوت واحد دول يسموه شركة وقدرنا سنا بتولي توافق كل سكرنا الحين صومالي فدراكا ودينا كوقنا يفر ولا أي أحد يقولوا ده كل ريزن باكرة أو ده مو وان كرنا ما أنتوا ديدين لكن لو صاروا أركيو بوليتيكال جيم كل شيء كل شخصية ناتها هذا أركي لكن سومالي تيجي وأبى يقولون سوالي حد يود ملح بنان ولا أنا قدرت يكون شرته ورئيس وسارع ولا سبلا وسارع وملحنا كسرنا عند السبوع ولا كل ماكسيم يصير كارما ديود هالكلام تقدر عند السبوع وسيراي كل ما أنت تركوا بالسعودية وكل قنعين كريم هالكلام كبسيط السلاك مركا فرق بكرة ده حرفتي واضح مركا شركة كيكو الرئي سؤال لا ويديدي markii dambana way ogolaatay dibnadaas intii ay socotay dawladda Ingiriisku aad bay waqti u gelisay safiirkeedii dhowr jeer buu Hargeysa tagay wala kulmay madaxda Soomaaliland kadibna Soomaaliland way aqbashay inay ka soo qayb gasho hadda ma isleedahay Ingiriisku sidii hore ma ahano waqtigii uu markii hore ku bixiyay in Soomaaliland ay timaado shirka Ingiriiska hadda waqtigaas ku bixinayo maxaa kaaga muuqda meeshaas runtii taa horta waxay دوّنتها تاهر وحاهيد سيدا مركور وديدين با ده انترست مدن سوماليلاند ku jirtay ma jireen laakiin markii dambe safiirku soo noqday xukuumadda Soomaaliland iyo dawladda Ingiriiska ajanda la sala qaartay in qodobkii faa'iido wax u Soomaaliland ka soo bixi doonaan oo taasina qodobkii lixaad ee ka soo baxay shirkii sanadkii hore oo ahaa in wada hadalka Soomaaliland iyo wada hadlaan iyo dawladda TFG-da iyo cidda bedeli doonta هذا مركز سوماليلاند دمبه وجرت الدولة الإنجليز مركز السفير كوسان وكقرعي والشركة ذات بعدين ولا هذا الكلام هذين بلاد مياه ما فهمت ودمتها قضب كسوماليلاند وفائدة بين مركز دم التركي اللي تيجي كوبي يصدق كيمياء لاسيا كنا قضب كي طبناد نقولين سوماليلاند ولا حلان تانا فائدة واحد مركز تندم وكقرعي إن دم سوماليلاند وجرت لكن تنيمك ده وحدنا الإنجليز كوش وعد سوماليلاند وحنا ندبليس ما سامعينه هذا يرتي وجرت ورئيس وزراء وكيس كده ينتي دوت وحنا كنت أنا مراكي كتير وكتركي كيما كالكي يمد runtii way ku qancin kareen wax tar oo Soomaaliland ugu jira halka shirka ay ka arkeen haba yaraatee ma jirto maadaama la bixinayo lacag fara badan oo Soomaaliya hadda aad muddo dalalka reer galbeedku inay il gooniya ku hayaan ma isleedahay fursad halka Soomaaliland ay ku dhaafaysaa oo ku saabsan lacagaha deeqda ah ee meesha lagu bixinayo haddii ay ka maqan tahay inaanay wixii markaa ay xaq u lahayd aanay heli karin inay joogto ay ka wanaagsaneed taan adiga ma ku muuqato wala runtii dad badan saa u sheegayso waa arkaya ana waa oran karaa laakiin waxaan ku rabo waxa weyn ka shaqada laga yimid 13 April waatii la kala saxday laba agreement Soomaaliya iyo Somaliland waxa ku jirta in mucaawinooyin kala hel xitaa hubka ay ku jirto in half iyo half loo kala qaato marka waxa jira dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland oo saxdaan ama Ingiriis ha noqoto ama caalamka meel kale ha noqoto mucaawinadaas mar walba in laba half noqonayso هذا أو تاسويل من كل شيء هوبك إيه ساندة إيه من الترقة تبرها حتى يمكن دولة تركيا حاولنا قارا إلى كل محاهد من الترقة أيوة تبرها صومالي شن بقول بالله قاعدنا يا مركحوا تاسويل كبدل سهلة معاونة عالم كبحيني مشرت بقد صحيح لبن الدولة دي أي ماشي كرا أو أي معاونة يسوق على صومالي لا عدة دون طبعا نقطة وحنا لو قبل سي جولاي من هذا نقول قضاء اسطنبول وشركوا كسي صعود سعاشر عشد بديت مركز وحرنتي هذا يرى حدود من الصوماليين ومعركة. وما صنتها مولود سؤال كلام فوجينا يا مهم. الحوار الصومالية وهو فوقها للبرلمان وكون بحيي سياسة الدولة دي سئيو هدف كأيو وحيالها مستقبل كأي كسريس. وحكم لها شر إن لو قبنا يو بلجيم أو يوروبيان يونيون كبيش سبتمبر أساس عطا أرجع الصومالي الله هذا الدورون قال يسدي دبوليس لو صنعها وهو كله كهالي شر السجنة لو قبض دون جبان أو شر عالمية لكن
si shir gaara oo Soomaaliya looga hadli doona halka uu isna ka dhici doono marka dhowr mar ballanqaadyo adduunku way ka yimaadeen dowladihii ku meel gaarka ahaa ha ugu badnaadeen dowladda laftirkeeda ballanqaadyo way heshay ilaa hadda inta aan ognahay sida wax loo ballan qaado waxba looma siiyo Soomaalida marka ujeedada shirkan marka laga hadlayo deeqaha la bixin doono iyo maxaa ku muuqda ma ballanqaadkii afka ahaaba weli ku muuqda mise waxaad leedahay markan xaaladdu way ka wanaagsan tahay rajo intee leedahay ka qabtaa arrinkaas runtii waa su'aal aad muhiim ah waxaan qabaa rajada way ka fiican tahay markii hore ballanqaadyadu way badnaayeen oo haddeertaan dowladda Soomaaliya oo dowladda rasmiga la wada aqoonsaday ila dowladii hore ku meel gaar bay ahaayeen waxay la imaanaysaa miiskan la soo saaraysaa mar hore keentay inay taagan tahay waxaan doonaynaa wixii aad ballan qaadda inaad meesha marisaan waa sababta loo dhisiyo joint committee of financial control sameeya yani guddi wada jira oo dhaqaalaha maxaa la yiraahdaa musuqmaasuq ilaaliyo waxaan waxay ku baxeen keena waa sababtaas weeye oo Soomaaliya iyo ka kooban dowladaha deeqaha bixiya iyo cid kastoo Soomaaliya arrinteeda hadirtaan ku lugta leh marka waxa qabaa waa fursad muhiim ah shirkan hadda London talaada dhici doona waxaa laga hadlay oo muhiim ah oo haddii ay noqoto in qalinka lagu duugo Soomaaliya mustaqbalkeeda u fiican 2 bilyan oo deyn ah oo Soomaaliya lagu leeyahay in laga cafiyo marka halkaas waa arrin muhiim ah dowladuhu hadda way ballan qaadeen cidoo lacagta siinayso ingiriisku wuxuu sheegay 80 milyan buu sheegay inuu bixinayo 2 milyan baa hadda ugu dambeysay imaaraadka carabta ugu talagalay kaliya kufsiga haweenka si loogu hortagi lahaa oo dhaqaalahaas iyo dowladda imaaraadka carabta ay sheegtay inay si gaar ah u bixin doonto marka waxa halkaas ka muuqata in dhaqaalihi uu diyaar yahay halkaas marka waxaan jeclahay anoo su-aasha ku dabaqaya waxaa halkaas ka muuqata in adduunku hadda Soomaaliya uu u soo jeesanayo sababta uu jeesanayo waxay tahay waa laga daalay 22 sano shirkan ma tagayno iyo shirkan ka soo horjeedaya ka soo horjeedna dowladda Mareykanka u dambeysay ayadu mowqifkeedu cadeysay toddobaad ka hor arrinta Soomaaliya oo ay sheegtay inay Soomaaliya midnimadeeda ilaalinayso si guud marka wada hadallada oo shirkii ka soo baxay Soomaaliya iyo Soomaaliya oo hadda la wada hadlayo waa meel aad u fiican oo shirka hore ka soo baxay loona wada hadlayo waxa ugu maqaala inuu jirayo shir kale oo qadar inuu ka dhici doono Imaaraadka ama Turkiga haduu yahay oo arrintaas si gaar looga hadlo oo ay tahay dastuurka dowladda ku meel gaarka Soomaaliya hadda dowladdan hadda cusub Soomaaliya dib igu soo samayn doono arrinta sidii Soomaaliya ku aqbali doonto ma garanayo laakiin ay qayb ka tahay in afti la qaado oo ay ilaa muddo ku meel gaar loo aqoonsado maxaa la yiraahdaa ishaq maamul wixii markaasi dhinaca federaalka arrintaasi waxay ka muuqataa in dowladda Mareykanku xitaa qudheedu ay aad u wado oo hadda ay sheegtay in lacag ku bixi doonto dib ugu soo sameeyay dastuurka marka in adduunku oo Soomaaliya ku sii fiirsan 20 sano ayuu dhawaatay ku tahay Soomaaliya dhawaatay ugu tahay adduunka dhawaatay ku tahay marka waxa halkaas ka muuqanaysa in la doonayo Soomaaliya hal meel cagiheeda la isugu duwo noocay doonto ha noqoto markaasna yani cidii ka hortimaadana loo aqoonsado cid dhibaatada Soomaaliya qayb ka qaadanaysa oo ay markaas la cabaareynayo ama la muujinayo waxa marka arrintaas u arkaa inay tahay arrin muhiim ah oo Soomaaliya laftiga looga baahan inay ka faa'iideystaan oo khilaafaadka iyo waxyaalaha macna darrada ah looga faa'iideysto in shirarkan iyo dhaqaalahan iyo waxaan imaan doona shirka sheegaysa Turkiga maxaa la yiraahdaa Istanbul iyo Belgium dhamaantood aniga waxaan qabaa haddeerta wax fiican baa ka soo baxay waayo dhaqaalihii la baxshay Soomaaliya haddeertaan cagihii ku socotay isku taagto dib u dhis wadanka raja dadka soo gashay dowlad baa la helay la wada aqoonsan yahay oo Soomaaliya haddeertaan matali karta oo la yaraha lahayo dhinacii ciidamadii dhinacaan maxaa la yiraahdaa ishaq cadaaladda laga shaqeynayo waa wada burburay oo dowlad ahaa oo qaran ahaa oo hadda la doono in la soo dhiso marka dhinac kasta ha noqoto ama Turkiga ha noqoto ama midowga Yurub ama international community arrinta hadda ay ka wadahayaan cid walba xisaabtankeeda waxaan aaminsanahay inay diyaar la tahay ayna samaynayso taa waxaan doonaa mawduucyada runtii madaxweynaha kii tagay Mareykanka madaxweynaha Soomaaliland wiig horteed ka soo noqday runtii wuu hadlay si fiican buu wada hadlay waxa la kulmay Vatican-ka qoladan defense ka qaabilsan maxaa hay'ada qolooyinka USAID-ka waxaan horta ka bedelay macaawinada Soomaaliya channel-kan soo marinayna haba yaraatee ma jirto sidii bay ahaanayaan
de tan imika de waxa weeye midnimada uu sheegay saaxiibkay mawlid waa runtii de waxa weeye wax de Soomaaliya iyagu fikir u gooni Mareykanku aaminsan yihiin laakiin shacabka Soomaaliya 2001 aftiba laga qaaday oo boqolkiiba 97 leeyahay madaxbanaanida la soo noqonay marka san adduunka ka warqabno ama caalamkan aan joogno waxa ay ku shaqeeyaan waxa waa rabitaanka shacabka marka abu Mareykan noqoto abu dawlad kale noqotay de waxa weeye ku khasban yihiin inta uu sheegay mawlid waa runtii waa la wada 5 sanadood federaalka hala garo sidii South Sudan oo kale ka bacay hadii aftaha laga qaado shacabka Soomaaliya 5 sanadood kadib dambe 10 years la sameeyo waxa weeye marka wali cusub la hadalhayo oo intaana dawladda haafa loo qaybsado hadee maadaama shantii Soomaaliyeed maanta labadan ay ka soo hareen ognahay Soomaaliya ku tagtay markii 60kii shantii Soomaaliyeed la doonay FD iyo Djibouti maanta go'aan u baxay nasiib darro iyo gelinka shanaad oo ognahay maanta inuu dawlad goboleed gooni yahay marka anagu waxaan la waraahayna waxa la qabanayna waan rabnaa wax la dhisnaa waa noqon oo jaara shalayna anaga wadna hadiyadii kan alada waa shantii doonana isku darsan Ingiriisku laakiin waxa ay labay warisiisuga wala inta ku bishraa بريرجع لجهة الأول كأخوي لبيك أكون دقيقين ما يصير ما يبغى وراها عندنا شنتي سوالف بردورنا مرة إحنا ما دام يمكن يريد شبدا ما كانت شنتي أنا بدون شنتي ما أنت معايا تقول يقول العالم كله أنت تعرف بلوغة تقول حنا تلا حدك تاسي شنتي سوالف بكتها أنت شنتي سوالف ولا معايا مرة وحنا هي والله وضر وشارة ولا يسكون هذا بالحماة بدي كلا الله بحث عن نقل وإحنا عنا اللي بتشرته. واتها من أنت أبدأ صورنا النقطة لليه هاي federaalka Soomaaliya waa ka sii mad ahaataa 5 sano 10 sano kadibna sida South Sudan oo kale in afti loo qaado oo adiga hadda aad ka dhawaajisay maadaama aad tahay diblomaasi muddo ka soo shaqeeyay arrimahan wax badan kala socda siyaasadahan geeska Afrika arinka ma isleedahay waa wax dhici kara oo shacbiga Soomaaliland ay ku qanci karaan mise waxaad leedahay waa sheeko aan ka soconayn Soomaaliland والله رنت waxa ku xiran tahay wixii marka horta details badan aan helno ay shacabka loo bandhigi karo oo oran karo dhageyso walaalahay waxana noo leeyaadeen maxaa talan maxay ka yeelna laakiin wuxuu yiri iska muhiim badan ba hadda ku jira waxa uu banaanka u soo baxo cadal lahayd ama shacabka laga hortago haba yaraata hadda ma hayno oo adaan oran lahayd oo waxana waa kale waxaas sheekh maanta oo dhageysta 5 sano ama 10 sano kadib aftigan uu qaadaya dadku meesha u bataan hadii dadku walaalahan ba ku noqonayaan walaal guud hadii yara madax banaaniga la soo noqonayna daayar lagu ixtiraam laakiin قرارة لما هيسان أمها هذا من الناس اللي يشيلوا يحملوا درات سيراي وكذا دواجي وح إنك ضمانة يا ما إلى next to 3 years كل شيء كل صعونة يوي ما فهمت سنة كلا بقول صدق قرب بس كل من الواحد سومالي هذا يقولي تالنت واحد أنا محفراني على سومالي سومالي حسن شيخنا وحلو دائما واحد دينا من الماضي بركة حرت العذراء ما بهذا العسكري واحد يحكي كلام ولا قفصان كريم أو ولا قفصان نوي حسن شيخ يقول سومالي ديار ومعها منو فهمت مركز دوننا وحوي سومالي وجيب بلاد ونقولها ونقولها قبلها الدحى بنتلال مرة السنة لكن مرة البيع وشباب إن سوماليا مرة البيع ودارتي ولا هاي من دماغ سوماليا على عنها يا أساس سبوا كسوء الأليا مرة لكن أنا أقول هنا هذا كنت من السوشيال بس إنجليز كحول تشارتي بيجلس هذهم وحول ما أنت عاصمة هذا أدو ما أنت تشوفه إن أجنبي عسكري ما أنت يو كنترول الشيء بعني جايتها وحول مركز الجول قبل مركز دستو هذا أتكلم إنه مني وحكي حل كارثة لكن ما أنت عيد أجنبي وضد كيس عمارة ولا عارفين شاركة هن تشوفه وأنا أجان طرفه ما يجان وضد كي عنت ما أنت بيود تشرو هذا ما ستهاي أركلا كويدين يا مدانا موليدة هاي qof saxafiya aad arrimaha Soomaaliya ugu dhintay sida la socota dhawaan dawladda Ingiriisku waxay soo saartay digniino ku wajahan Somaliland Soomaaliya ay leedahay khataraha soo socda dadka muwaadiniinta Britishka ayay halka tagin runtii waxyaalaha ay aadka uga hadashay waxa kamid ah in la weerari doono goobaha dawladda federaalka Soomaaliya xarumaheeda waa la weeraray iyadoo dhibaatada ay jirto haddana maalmo kadib wasiirka arrimaha dibadda ayaa tagay Britain magaalada Muqdisho wuxuu sheegay in calankii safaaradii meeshii laga furay taa macnaheedu muxuu waa su'aal aad muhiim ah Cabdi Qaadir horta inay xogta la helay waxay yani muujinaysaa sida sirdoonku uu ugu badan yahay Soomaaliya reer galbeedku magaalada Muqdisho waxaan ka warahaynaa sirdoonka Ingiriiska sirdoonka Mareykanka kuwa kale oo far badan inay joogaan dawladda Soomaaliya inay saacidayaan dara badan ay joogaan waayo waxa Soomaaliya lagu tuhmaa inay ku sugan yihiin dad badan oo muwaadiniin oo dadkaas u dhashay oo qatar ah
marka waxay doonayaan inay meeshaas ku moosaan inta ingiriiska ama maraykanka imaan lahaayeen ayagoo dhibaato wata inay meesha dhici doonto aan baqayno muwaadiniinta loo dignay ayaa haddana tagnay oo safaarad kasoo furnay macnaheedu waxay tahay cid walba si oofsanan kartaa danta way jirtaa shirkan hadda maanta dhici doona 7 bisha 8 qodobka ugu dambeeya waxaa ka mid ah trade and investment sida cabditax hore u sheegay waxaa ka mid ah in Somali diaspora international maxalliga partnerka oo businesska investment Somali lagu sameeyo investmentgaas marka dowladaha laftigooda waxaa gadaal ka riixaya ama buush garanaya wadamada waxaan leeyahay shirkadaha ama siirida ha ahaato ama qaylada ha ahaato dan baa ugu jirta Soomaalida maaha in la yiraahdo anaga waxayna meesha ku haysanaa gaajaan u baaba'ayna maaha waddanka investment u baahan yahay meel walba qaylad ba ka jira ilaa maxaa la yiraahdaa maraasacsi ilaa raas kabooni ciddii maalgashi samaysanaysa way samaynaysaa waxaan ka waraahna Soomaaliya hadda way joogaan Puntland bay joogaan dhinacaan maxaa la yiraahdaa Muqdisho joogaan dad badan baa investment sameynay marka waxaasoo dhan marka waxay tusaale u tahay in la doonayo in international community ay diyaar u yihiin in Soomaaliya qatarteeda ay galaan oo ay u galaan arrintaas waa mahadsan tahay gabagabadii ayaanu ku dhownahay arrinta safaaradda maxaad ku darayaan sababta hadda kusoo beegtay ingiriiska muqdisho oo uu sheegay in xaalkeedu uu aada u xun yahay dhibaatooyinna ka dhaceen in safaarad uu ka furo taa maxaad u aragtaa maadaama aad tahay diblomaasi runtii de waxaan aad u arkayaa taa imika haddaad eegto January sanadkan oo kale Libya Tripoli waa tii ingiriisku yiri ma ogtahay dadkooda ha ka soo baxaan isla habeenka haddana magaalada kale Benghazi la yiraahdo ayay yiraahdeen marka 3 bilood kadib way review garay waxay yiraahdeen waa nabadgelyo horta waxyaabo sirdoonka hadii waxa weynka san ka warayno Soomaaliya oo kale sirdoonka ingiriiska iyo reer galbeedka way joogaan Soomaaliland sidaas lagu xitaa waxa biloween baaba ka dhisteenba waxa uu xiriirka sirdoonka ka dhaxeeyo wadamada jaarka iyo wadamada reer galbeedka ayaa keenayay wararka ay soo gudbinayaan dawladahooda wakiilada uga yihiin marka wararkaasi waa warar ruuya noqdaan mararka qaarkood waxa resource ama meelo kale oo la hubin ay warka ka helaan oo sax ahayn oo iyagu dheedo nimanka reer galbeedka wax bileeno iyagu dheedo mararka mistake way gartaan laakiin 3 bilood review wadada ku sameeyay dawladda ingiriiska ka warhayo caadi haddana imika xitaa waad ogaan karaysaa every 3 months wadada review securitygiisa ama dadkiisa leeyahay travel waxay yiraahdaan wax la yiraahdo dadka u travelan wadamada tagay oo socdaalaya ha tagina macna nabadgelyo haddii essential ahayn ama wax muhiim ah tagin marka wax laga bixi karayo weyta safaaradda tilfurashada hadaan soo noqdo tilfurashada runtii dabcan saamul sheegay dawladda ingiriiska wadankan ay joogo waxa dhaqaalaha ugu badan waxa dawladda ingiriiska maanta ma laha oilkii ka dhamaaday warshadihii way dhamaadeen waxa kale maanta waxa 102 bilyan a day ayaan waxa ka taamar City of London oo ah ma ogtahay caalamka waa exchange ugu weyn waxa kale wadanka kale ee adduunka meelaha maraakiibta caalamka ee maraan laga insure garay Lloyd's City of Lloyd's meesha la yiraahdo marka wuxuu interest badan baa ugu jirta Soomaaliya maanta inay degto oo waxa weeyadi kale maraakiibtii mareysay ilaa badda casila Indian ayaan mari kareen wadada gacan aad u balaaran marka dhibaato badan ba dhaqaalahoodii si walba oo marka dan baa ugu jirta inay degto marka safaaradda furashadeeda ee furatay wax runtii ay dabcan waxay tusaysaa in meeshii if ama nabadgelyo ka soo baxayso Soomaaliya ay meel degan ay tahay haddana contradictory ku sameynayso wax bilka yar horteed iyadoo yiri security ma wanaagsana marka xitaa diblomaasi ahaan inay wanaagsan runtii laakiin aan waxaan hubaa 3 bilood kadib time laga joogo in dawladda ingiriiska mowqifka security ama Soomaaliya noqoto ama Soomaaliya ay wax ka bedeli doonto waa mahadsantiin ugu dambeyntii marka shirkan aynu soo noqono shirkii barnaamijkeena ku saabsan dawladdu maxaad is leedahay natiijada ugu dambeysa shirkan waa lagu gaari karaa oo waxaas baa ka soo bixi kara maxay kula waxaan filayaa natiijo fiican ka soo bixi doonto waxa ugu muhiimsan ka soo bixi doona in la mideeyo gacnaha Soomaaliya hadda ku jira Turkiga oo ay reer galbeedka shaki ka qabaan especially xisbigan hadda uu hogaamiyo AK party leerado Erdogan oo xisbi dhinaca islaamiga u janjeero oo hadda waxa ugu dambeysay week hadda ugu dambeeyay diyaaradda Turkiga waxa laga mamnuucay gabdhaha in rooseetada maxaa la yiraahdaa ishi gududka oo afka la marsanayo kale la yiri waxay dhibaato u keenaysaa dadka arrintaas oo jaraa'idada reer galbeedka aad u qaadeen oo dawladda Turkiga banka ka qaaday iskaafki maxaa la yiraahdaa gabdhaha wajiga maxaa laga muuci jiray in iskoolada lagu tagin oo isaga xaaskiisii ay tahay xaas asturan oo jilbaab iyo wixii wata marka Israel xiriirka soo xumaanay dawladda Turkiga marka shaki baa laga qabaa shakigaas marka waxa weeyaan in Soomaaliya ay ku yeelato lug badan Iran laftigeeda Soomaaliya tagaysa qudeedii marka
waxay doonayaan marka reer galbeedka danahooda inay artaan wax qatar ka imaan kara Soomaaliya ay meesha ka baxdo qatartaas marka waa sababta arrintaas safaaradda hadda ka hadlaynay oo loo muujinayo in Soomaaliya maxaa la yiraahdaa isha kala doonay in maxaa la yiraahdaa joogitaanka la muujiyo oo la yiraahdo wadankan wadan rajo dhiga maahan annaga dhibaato isku yihiin marka waa in la taageero la caawiya marka midayn baa imaanaysa marka إلا تركيا هذا حقوق إنه إسكو كيلو مدحوين الصومالية يوم مدحوينها الصوماليلان إنجليز حقوق درستي مركا هالكاس waxa ka muuqanaysa marka in laga dooranhayo yani arintaas marka waxaas in la mideeyo iyadoo ayagoo daladu eeganayaan ama Mareykanka ha ahaado Ingiriiska ama Turkiga ama Turkiga cid walba ahaado in waxaas marka la mariyo waxay kula tahay shirkan in natiijada ugu weyn ee heli doona ay tahay in dhaqaalaha kala duwanaa wayba caddeeyeen qodob ka mid ah waaye waxa la yiri mataqaanaa ii sheeg in maxaa la oran jiray in yani Soomaaliya caawinta la caawinayo hal meel loo maro waxa kaloo ka soo baxaysa in dhageysa madaxweynaha Soomaaliya uu yiraahdo okay waxa sii maraysa muddo 10 bil ku dhow farqi siyaasadeed baa muxuu ahay tamuuqda maxaad haysaa la imo la dhageysa haduu wax macquul kale la yiraahdo okay halkaas ka wad haduu keeni waayo dib u fiir lagu sameeyo hubkii la balan qaaday cunaqabaynta laga qaaday wixii taageerada siinay waxaas oo dhan way imaanaysaa waxaa imaanaysa oo kale in muxuu hayto isheeg la dhageysto wada hadalladii waxaa la shirku qodobka koowaad baa lagu daray in la soo dhaweeyo shirku Soomaaliland isla marka waxaas oo dhan shirkan hadda ama qadar ka dhac doona la wada hayo ama dastuurka inta laga hadlayo oo federaalka waxa laga hadlayo waxaan maanta akhrinayay warbixintii ugu dambeysay oo yani wakaladan ama website-kan weeklies of documentary soo foga kamid ahayd in Maxamed Siyaad Barre 9 November uu la kulmay safiirka Mareykanka xilligaas Bob oo yiri waxaan kala hadlay federal system marka halkaas waxa ka muuqata in shaqada sano ka hor arrintan ay reer galbeedku dhinaca ka wateen marka Soomaalidu hadda dad isku tashan kara ma waa dadkaas hadda is haysta wataa mawlid waa maasan tahay ugu dambeyntii natiijada maxaa ku muuqda inay ka soo bixi karaan maadaama Soomaaliland ay sheegteen aan tageen Puntland aan tageen والله أنا رجونا سبب كقوانين كسب بحثوا صوت وحيون لا يهاي ده وحي هرت العقبة لوبية ولا العقبة سلا بحمدهم يستيقظ دكتور مقرنه العقبة ما هذا اللي بيقول يهب بين بلايين دولار كرا ده واحد فيلا هنا اللي لسه عم يدرون صومالي يجود حان ده عام افتادين قطعي international military fund كلا بضبة العقبة من ده كلها هنا الدولة دي وراء معدن اللي بدأ هرت سامحات بقصة من دولار مركز ويرتهاي إن دبلسكا Soomaaliya ama cadaaladda noqoto ama xagga waxbarashada focus-ka waliba ay saar doona xagga amniga in Soomaaliya laga shaqeeyo taas marka adliis Soomaaliya wax soo kordhay ayaa noqonaysa waxa ugu yar hadii maanta xitaa 100 milyan ka hesho xitaa shirkad iska mid ah 400 kontonka uu sheegay mawlide 100 milyan maanta wax soo kordhay Soomaaliya ayaa noqonaysa oo faa'iido ah bay faantay marka runtii aan rajo maadaama konton dawladna imanayaan waxaan rajo runtii optimistic baan wax wanaagsan oo qurux badan halka lagu soo baxay walaahi muuqataa waa dhinaca samafalka iyo amniga iyo rajo siyaasadeed oo weyn oo والله رجعنا السياسيين كسر حالك الصومالي ما أركيه رونهانتي الصومالي دحية وليبة وما أركيه بكل فرق غير بدن باكرة لكن حق البوليس كأي معاونية كصومالي فاهم حق السياسة الصومالي جديد وحفلة يا باوي الله يكفي واتها ما تسنتين دايما وحنا سوق على جبل برنامج كحقورن تدرات برنامجku waxaa igala qayb galay ambassador Cabdifataax Saciid Axmed oo isagoo hore u soo dhacday ambassadorka Soomaaliya oo qaabilsan Ireland waxa soo kale barnaamijka igala qayb qaadanaya Mawlid Xaaji Cabdi oo ah saxafi Soomaaliyeed oo isagu la soo shaqeeyay qaybaha warbaahinta gudaha iyo kuwa dibadda intaba aad bay u mahadsan yihiin barnaamijkana waxaynu kaga hadlaynay toddobaadkan mowduuc ku saabsan waxyaabaha ka dhalan kara ama ka soo bixi kara shirka Soomaalida loogu baaqay ee lagu qabanayo dhawaan magaalada London barnaamijka waxaa farsamadiisa gacan iga siiyay Saadaq iyo Cabaaw aniga Cabduqaadir Rabaaraan oo idin la socodsiinayay aad baa mahadsantahay intaan mar kale kulmayno dhamaanteena isku duuban meel kastoo aad joogtaan sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu